Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soonqaad wanaagsan daawadayaal. Amar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushka waxaa lagu amray ciidamada Ruushka ka dagaalama bariga dalka in la geliyo diyaargarow ciidankii ugu sarreeyay. Ciidamada ayaa waxay yihiin kuwa qaabilsan la dagaalanka dalalka Jabaan iyo Koonfurta Kuuriya. Waynu ognahay inay yihiin laba dowladood ay kala fog yihiin dowladda Ruushka, haatanna dowladda Maraykanka la samaynaya dhulatusyo military. Maalintii shalay ayay ahayd markii gebi ahaanba wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushku heegan gelisay ciidamadeeda badda, gaar ahaan kuwa ka dagaalama badweynta Baasifiga. Maalinimada maantaana waxaa ka dambeeyay amarkan heeganka ugu sarreeya lagu gelinayo ciidamada ka dagaalama bariga dalka. Dowladda Ruushka ayaynu ognahay inay dalka Jabaan ka haysato 4 jasiiradood. Jasiiradaha ayaa waxay yihiin kuwa Ruushku uu kala wareegay Jabaan markii uu dhammaaday dagaalweynihii labaad ee adduunka, oo ay dowladda Jabaan ka mid ahay dowladihii laga adkaaday, Ruushkuna uu ku jiray dowladihii guulaystay. wixii xilligaa ka dambeeyay dadka Jabaaneeska waxay cugdad weyn u qaadeen dadka Ruushka ah. ilaa iyo haatana labada dowladood ma aha kuwa leh cilaaqaad wanaagsan oo la taaban karo, waxayna had iyo goorale Jabaaneesku ku andacoodaan inay jasiiradaha la soo noqon doonaan, inkastoo aynu ognahay dowladda Jabaan inaanay lahayn awood ay dowladda Ruushka dhul ay horey uga qabsatay kaga soo ceshato. Maalmihii lasoo dhaafay wasaaradda gaashaandhigga dalka Ruushku waxay heegamo kala duwan gelinaysay ciidamadeeda, innaguna arrintaa waxaynu ula soconaynaa si qoto dheer aadna u dhow. waxaanu idinla soo wadaagaynaa marka ugu horreeya aanu helno xogo lagu kalsoonaan karo.